Aragtida adduunyadu ninba waa markiisa maalintaadu tay tahay cidna kaama wacayso. Maxaad ka taqaanaa fanaankii intuu fanka ku fashilmay haddana noqday abwaanka isla markaana uu doorto habkii kale ee uu kusoo bixi lahaa? Maxaad ka taqaanaa fanaankii fashilmay? Ila dhegeyso. Diriga waxa uu ahaa fanaan ham iyo higsi iyo himilo kule sidii uu noqon lahaa fanaan weyn oo geeska Afrika iyo gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed, balse maxaa dhacay? haddaan diinta islaamku ku duxin maakiyo qulubta yaqiintu iimaanku ku soo dabraynin yaqiintu ku doojinaynin wanaagna ku deeqi waayo durhaatanaadi lowdo dambeetana eegi weydo gafkaaga dareemi weydo dadkana aad xeerin weydo cidluun baa kuu dambayne haddaad asturnaanta diido dibadda xubnahaaga keento intaad kolba daaf balnaysaha googta haddaad ka dayso jidhkani dusha laga arkayaa inuu dembi yahay yaqiinso duufaanno marbay kacaane haddaan cirka kuu daruurin dushaadana roob ku hoorin dugsiga aqalkiiyo rugtiinna haddaan laga shidin dab oogma wakhtigu adi kuma dildarin duruuftuna kulama dhalan waayaha dunidiyo lurkiisa dadkuba waa kula qabaaye ka saar noloshaada dayro. Waxaan filayaa fahamta qofka laga hadlayo maanta waa international, maanta waa abwaan, maanta waa siyaasi. san abwaan laabsalax wax ka fiican ma jiraan haddii aad fahanto meesha aad ku fiican tahay isla markaana ku soo bixi karto. Ankii hore abwaanka siyaasiga maanta waxa uu fahmay in aanu tan ku soo bixi karin isla markaana uu uga wareego dacal kale oo isaga uu ku soo bixi karo. ugu dambeyntii waxa uu go'aansaday inuu noqdo abwaan isaga oo ku bilaabay in uu heesaha u dhiibo isla markiiba waxa uu isu bedelay abwaan caano oo laga yaqaano dhammaan geeska Afrika. maanta waa siyaasi si ka duwan sida inuu kulmi jirnay iyo ujeedo ka duwan ujeedooyinkii aynu kulmi jirnay. nidaamka dimuqraadiga ah ee dunida inteeda badan ka shaqeeya ee aynu qaadanay ahna fikirkii qarnigii 20aad ugu guulaha badnaa hirgelintiisu sahal iyo fudayd inooma ahayn, balse isku duubnideenna ol iyo isku diirahaanshaheena iyo biseelkeenna ummadnimo. maanta waa siyaasiyahan ku jiro himiladiisuna aad u dheer tahay. waxa uu ka sharaxan yahay golaha deegaanka ee Jamhuuriyadda Somaliland. Soomaalidu waxay ku maamahdaa inaad kuftaa ceeb maaha, balse inaad sii fadhido ayaa ceeba. haddii waxa qurux badan in aad fikirto isla markaana aad garato meesha aad ku fiican tahay. waa barnaamij taxana oo aan ugu magac darnay u fiirso meesha aad ku fiican tahay. Bashir Cabdi Axmed Jeesto, nabadgelyo. haddaan diinta islaamku ku duxin maakiyo qulubta yaqiintu iimaanku ku soo dabraynin yaqiintu ku doojinaynin wanaagna ku deeqi waayo